سؤال اللي قويديه وحيده دي دولة دي دحاتيه محمود ذي قرط محمود ذا يدك عسير الله قرط وأركتي والكوسو بدك تقولنا هدي أبو بهطو إن أديكو مقعد ما هون كيبل وريه هون كيبل وبعد كل أنفيلي رتاي واحد شن يا فرتن كون أي صوابر كعاي سيدا بحوجتها كسو هشان ماها مقعد ما مستر الجيزاوي مقعد ما أحمد أيان لا استغفر الله lacagtii tirada badnayd ee dawladdu ay ugu tala gashay ka soo kabashada ma idin soo gaadhay haddayse lacagtaasi idin soo gaadhay maxaad ku qabateen muuqda lacagta aanu hayno adeer magacaaga maaha saalax soolig su-aashii weydiiye maad ahayn إذن بويد عرقابة كدقاقدا ويلا دافتا دتك دقن لاميغا هريريهيسا لاميغا نمن كلا نورد سيستان سو aragnay inta ugu badan biyeelaantu waxay haysaa dadka dhinacyada ugu dhow laamiga degan sidaan meel dhow tolo soo aragnay dadka biyo lala dhaafayo maxaa u qorshaysan magacaaga maxaa abdiqariyow استغفر markuu roobku da'o dadka qaar waxay samaystaan biyo xidhano isla markaana lagaga gudbo maxay hayday abaaraha soo socda ma idin qorshaysan yihiin inaad samaysaan biyo xidhano aynu kaga gudubno ama aynu maalgelino beeraha si aynu u waraabino xoolaha marka ay abaartu dhacdo su-aashaasaan weydiinayaa mas-uuliyiinta aad ba umahadsantihiin adigu soo alaminteeyo markaad heerka soo gaadho markaad heerka soo gaadho ee haykuyugaagu uu la qabsado baasha su-aasha ayaa mid lamida insha allah la weydii waxaa la keenay gobolka muxuu ahaye ama waddankaba somgaas wadaba ay yar tahay weli wacyigelin ma samaysano ma u tagteen ma tirahdeen muxuu ahaye dadka qaata inaga magaciisu muxuu ahaa waddanka ma yonis waxaan weydiinayaa madaxdeena gobolka iyo degmada iyo isduwaha haddaanu nahay bulshada ama dhallinyarada gobolka sanaag guddida abaaraha ee heer qaran ma qabno inay si feera wax u qaybin jireen guud ahaan guddida abaaraha heer qaran haddaba maxaa uga qorshaysan guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada iyo isduwaha barakacnay miyiga marwade xooluhu naga dhammaadeen muddo hadda 3 bilood waan joognaa xoolihiinu markii hore intee in leeg baa waxay ahaayeen markii hore 5 meelaha iyo 2 dabeeraa markii hore wallahi guddida iyo waxaasan la caawisay inkana wallahi ilaahay dib muslimka ilaahay waxa baahiyada biyaha dad wax walba u baahanay dad nool wax walba u baahay dhalinyarada أنا وغيرها مكسورين واحد كشري مبدأ إلى 6 بلاد مركور أنا طول هالكسان لي حنا سنة صدق كيلا لغت فأريا صدق دبيرة أنتوا وين قلنا ما تسألنا فأرينا وجهنا بدنا وانا صار الله هالكلام أنا صار مرة قال أنا صار نرى صوت ترى أنا قلت تشوفنا مركور بيوضع يحبد بدنا نروح كيش ما كنت بنا كان صار أخيرا أنا أعرف يا يريد كشري أنا قاعد قبتي بدنا هالكلام أنا صار الله أعرف كسان الله أنا هالكيا أسكت wax kale oo markaan loo keenay qoyskaagu imise qof buu ka waa taban caruur adigu aad dhashay caruur aan u dhalay ku ay haystay waxaas weeye
ugu badan adigu dee marka xoolaha iyaga aan jecelin jiray dhammaadeen wax kastaba waan u baahnaa wax kastoo shaqo oo weyn aan haysanina ma jirin il xoolo ku nool baan daa xoolena waa inaga baxeen guriyahana waa nalagu gacan qabtay maanu lahayn waxa weeyaan kasoo barakacay laba gardee anigu wuxuu ahaa 100 iyo xoogay dameer waxaa laba geelu wuxuu ahaa 3 adigi waxaa iga hadhay 7 baahida idinku badan maxay tahay baahida dawladda fardo iskuulada iyo ilaa caruur miyiga hadda ka yimaadeen magacayga waxa la yiraahdaa Faadimo Cali Maxamed waxaan ka mid ahay gudidan xaafad Soomaal goobtan aan joognaa waa xaafad Soomaal waa goob barakacayaashu 90% joogan dadka joogay xaafad Soomaali soo barakacay ee xooluhu ka soo dhamaadeen waxay u baahan yihiin wax badan in loo qabto waxay u baahan yihiin in maxay tahay goob caafimaadka lagala shaqeeyo waxay u baahan yihiin in hoyga lagala shaqeeyo waxay u baahan yihiin in hadii albaydankeeda leeyahay maxay tahay wax cunada iyo maxay tahay lagala shaqeeyo waxay u baahan yihiin in dabadajin loo sameeyo sida xoolaha kale in dabadajin loo sameeyo way u baahan yihiin maxay tahay dadkan xaafad Soomaali jooga ee barkacaya